وأنا كشينا عليها محد بيك وحنا لنهاي ورا فاها قلت دفكوا بحه ما أنا أول بالكاس على صوف الدا هذا الحلم على صوف الدا وروح يحل السودان ما كلها نعلى شيء كذا والسودان أنا كل هذا منه أنت كبدن كورن كرمينه وأرميش إسكقة وجهك قوية كورن محيط حاس ما أنا أول ودتك هذا الباكاس ونعيم محيط سيد حاكي بهذا الكوق بنايا مركز هذا وحبي حيرنين وهذا الكوارع كلهنا وحليل نروحنا ميلو بكون عورنا ميلدر بكون هذا الكي أتري ما توقف سوماليا ودقيه سا كل يومين كنحن مجرو ورابها قلت نعلى شيء كذا محمد بيكي مركان إيجي ودنا عول بكردكتي waxaan idin waa nin doohanna dhameysmaa iyadoo aan ognahay ninkaasi godobtii uu ka galay ummadda Soomaaliyeed ee tirabeelka ahayd maanta ay u darnayd oo iyadoo qaraxi la ogaa oo ummadda Soomaaliyeed ku dhamaatay oo magaalada Muqdisho ka dhacay oo dunyada oo dhan ay dhabanada la hayso oo inala murugaysan tahay buu magaalada London si jees wuxuu uga yiri hadal nuxurkiisu ahaa qaraxyada ka dhacay magaalada Muqdisho iyo Soomaaliya waxa ka mas'uul ah Somaliland bal waa kane hadalkiisa ila dhugta oo ila dhuux waxaan ka codsan lahaa inay Somaliland sii daayaan iyaguna nabad bay helayaan waayo hadday u ogolaadaan itiraafkooda qaraxa iyo dhibaataduna way ka baxaysaa waa walaalahood Muqdisho hadii la iga maqlay waxa loo lahaa Somaliland sii daayay tan waa dhafo rahays weeye hadalkiisu laba mid buu noqonayaa inuu qarxiyay sirda soonayd oo Somaliland ay ku lug leedahay sidoo sheegayo qaraxyada ka dhacay magaalada Muqdisho iyo inuu dadka Soomaaliyeed ee Somaliland dambi aysan lahayn uu dhakada ka saaray waa musharaxii shil ku reebay shiina culay oo maanta doonaya biike waxa weeye oo nin waxa weeye aan waxba laga qorin waayay isugu dhuftay inuu gabigiisaba barida dhulka ugu dhufto waxa ka codsanaya video kan ina si share galaysan qof walba arkana uusan dhaafin si uu fariintaydaas isaga u gaarto nacala shida ku yaale janaalkay hadii hore subscribe u saarina hadda subscribe saarta si videoyada u rugumataan like iyo comment-gana soo badiya Maxamed Bike waxa weeye markii ugu horeysay ee ummadda Soomaaliyeed qadaf u geysto oo uu godob ka galo maaha doraad been ogeyn oo wuxuu yiri xamar tagideeda xabad baan ka xiga iyadoo tii la yaabay yahay oo meel uu raali gelin kaga bixiyay aysan jirin buu shalay haddana wuxuu la soo istaagay ma Muqdisho mise inta kale Muqdisho iska maqnaato dhibaato magaalada Nairobi loogu geystay buu caradii wuxuu kula dhacay magaalada Muqdisho waa caasimadda waddanka Soomaaliya Nairobina waa caasimadda waddanka Kenya wixii Nairobi xumaana oo isaga ka gaarto waxay ahayd inuu Kenya u qaato wixii Muqdisho ka gaarana inuu Soomaaliya u qaato Muqdisho aanu tagin agteeda marin wajiyo wanaag u hayn buu godob magaalada Nairobi la yiraahdo lagaga soo galay buu caradaandaankii waxaan maqli jiray waxa weeye kan yar iga qabo oo kan weyn ugu sida buu Muqdisho kula dhacay iyadoo waxaas ay taagan tahay oo taana uu raali gelin ka bixin waddanka Ingiriiska la keenay Ingiriiska waxa lagu keenay oo lagu casumay barnaamij la yiraahdo Somali Week oo Soomaali loogu tala galay oo dawladda waddanka Ingiriisku ay maalgeliso safaarad Somaliland leedahay ma casumin halka safaarad kuma le jaaliyad reer Somaliland ma casumin Somali Week barnaamijka la yiraahdo oo dawladda Ingiriisku ay maalgeliso oo loogu tala galay sanad kasta in lagu keeno dadka Soomaalida xulka ah ee fanaaniinta iyo abwaanada ah si ay ummadii Soomaaliyeed oo Ingiriiska ugu noolayd ay inta ugu yimaadaan ugu madadaaliyaan oo dawladda Ingiriisku ay maalgeliso oo magaca sax ka arkaysan Somali Week la dhaho baa ninka lagu keenay fanaaniinta Soomaaliyeed oo meel walba taagan isaga iyo nin iskaraaji la yiraahdo oo fanaan oo Canada laga keenay baa laga soo xushay ummadda Soomaaliyeed waxa weeye wixii uu u geystay xalay dhalay ka noqotay waxa la yiri waxa ayaan loo qaban hal keeno nin Soomaaliyeed weeye inuu ku bogsoodo oo markuu arko ummadda Soomaaliyeed inay soo dhaweysay oo ay wanaaga u gashay inuu wax iskaga bedelaan baa laga yaabaa Ingiriiska wuxuu ugu doolay baasaboor Soomaali leedahay waa ogtiino Somaliland baasaboor ma leh hadday leedahayna lama aqoonsana meel laguma tago Ethiopia ku dhagan laguma gali karo Ingiriiska wuxuu ku tagay oo visa lagu siiyay baasaboor ummadda Soomaali leedahay Ingiriiska markuu tagay halkii ahayd ummadda Soomaaliyeed inuu isu soo jiido oo uu isu keeno nuxurka hadalkiisa gadaal baan ka gali doonaa si xunna daqiiqada ugu dambeeyaan u garaaci doonaa yaan maxaa ku raadaay hadalkayga laga digdig marka halkii ay ka ahayd ummadda Soomaaliyeed inuu isu keeno
waxa weeye markuu tagay masraxii markuu soo fuulay calanka Soomaaliland buu la soo fuulay sidii in Soomaaliland casuntay sidii dadka meesha fadhiya oo daawanaya oo cajab leh oo cadaan leh oo Soomaali haan walba leh oo deegaan walba leh oo reer walba leh sidii inay yihiin jifidiisa waxa weeye buu calanka Soomaaliland la soo galay lagama xumaan laguma canaanan waa la iska daayay show buu qabsaday waxa weeye Soomaali oo dhan baa u istaagtay nin baa mushtar ku jira oo tigidhkiisa iibsanayo ahaa waa loo tagay xaalay buu show kala qabtay markuu showga kala qabtay iyadoo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ogtihiin masiibadii magaalada Muqdisho ka dhacday ay dhulgariir inoo ka xumay oo 100 qof dad ka badan ay inoo ka dhinteen 130 qof in ku dhowna ay ku dhaawacantay oo xataa Turki oo aynan diin aan wadaagno oo Afrika iyo Asia aynu ku kala naalo u diyaarado inoo soo diray oo adduunkii gaaliya islaamka la inoo danqaday oo TV-yada wararka laga akhriyay wariyaashii akhrinayay ay baroorteen oo dhabanada ay qabsadeen buu wuxuu isagoo ninkaasi nin Soomaali ah oo aan isku diirnahay oo isku dadnahay oo isku dalnahay oo isku luqadnahay oo wixii laba qof wadaagaan xigto xigaal ehel wax walba nasabad diin dhaqan aan wadaagno buu intuu masrax soo istaagay uu ugu talagalay inuu ka heeso oo uu dal lacag ka qaatay buu halkii ahayd ummadda Soomaaliyeed u timi ee reer walba leh inuu u heeso halkii ahayd buu hadal degdega la soo istaagay waxaan isir Maxamed Biiki hadalku wuxuu u qabtaa sida xaadku dadka u qabto buu qabtaa baan isir hadal yaa u disada inuu hadal buu meesha la soo istaagay muxuu yiri hadal la soo istaagay waxa weeye Muqdisho waxaan u sheegayaa inay walaalahood Somaliland iska sii daayaan si ay nabadgelyo u helaan Somaliland inay fasaxaan oo sii daayaan si ay nabadgelyo u helaan macnaheedu waxa weeye Somaliland haysashadeeda iyo amni darrada magaalada Muqdisho ka taagan waa isku sidkan yihiin haddii Somaliland sii haysataan nabadgelyo ma helaysan haddii Somaliland ictiraaftaan oo sii daysaanna nabadgelyo helaysan waa eega waa isku sidkan kama dhamaan intaas wuxuu ku daray haddii Somaliland ay ictiraaf hesho haddii ay Somaliland ictiraaf hesho waxa weeye qaraxyada iyo dhibaatada baa in ka joogsanaysa macnaheedu taas waxa weeye Somaliland baa hadda dhibaatada in ku hayso qaraxyada in ku haysa sababtoo ah ictiraafkii baa ka hor istaagantihiin haddii ay ictiraafka u ogolaataan oo siisaanna qaraxyada iyaduna ka diisanaysa waa sidaas weeye macnaheedu waa sida inta kaga harin halkii ahayd dadka inuu tacsiyeeyo buu wuxuu u gudbay Maxamed Biiki inuu Somaliland amaano oo yiraahdo Somaliland qaran jira weeye madaxweynayaal badan bay lahaayeen kanay lahaayeen cid hor istaagi karta male Maxamed Biiki waxaan u sheegaynaa Somaliland waad amaani kartaa waana amaanan tahay wax badan oo lagu amaano oo cajab iyo cadaan iyo cid kasta ay ku amaanaysana waa jirta anagu marxaati aan ka nahay dadka inay yihiin dad tashaday nabadgelyadooda ka shaqaystay horumar jooga ma ladan oo walaalahaya waxa amaani kartaa dadkaaga hadaa rabtid inaad amaantid oo faanisid inkastoo la yiri waxa la yiri nin isfaanshay waa isnugtay ina adu isfaaniso ma waa in dadka kale ay ku faaniyaan yeelkadeeda hadaa isgaratay oo ay dhaqankaaga iyo dadnimadaada ku siisay ina adu isfaanto oo isnugtay aan noqoto waxa ahayd Maxamed Biiki adoo ummadda Soomaaliyeed aan u soo marin oo ummadda Soomaaliyeed hadal xajiin leh oo waxa weeye boobaha iyo argagixisada maanta dhibaataysay ugu raacayso hadal adoo halka aanu mar waxa Somaliland ina iskood u amaanto adoo Somaliland aan isku xuqin oo Soomaali kale aan isku xuqin ina tiraado anagu Somaliland baan nahay waxaasan qabsanay laguguma yaab cid kula yaab lahayd ma jirto cid ku ceebaysan lahayd ma jirto Somaliland meel walba istaagto waa ka amaani jirtay waxa weeye calankeeda la soo bixi jirtay wax shida ama lahaatay saas loo arki lahaa laakiinse maanta hadalka aad tiri oo la soo istaagtay meesha la soo istaagtay macnaheedu waxa weeye annaga meesha qarxina hadalka laba marka mid weeye saan hore u soo sheegay laba mid weeye ina dadkii Somaliland aad dhakada ka saartay dambi aysan gelin iyo sir aanan annaga ogeyn ina ogtahay oo qarxisay oo ay runta tahay ee qaraxyada sida u sheegayso ay Somaliland ka dambayso iyadoo uga gol leh Soomaaliba aniga ictiraafiga hortaagan iyadana nabadgelyo ka hor istaagay marka Maxamed Biiki waxa weeye hadalkiisaasi waa hadal shaki weyn abuuray waa hadal ummadda Soomaaliyeed kala deeway hadalka uu yiri ninkaas
siduu rabo isagoo hawlo joogo waxaan idin sheegayaa ummadda Soomaaliyeed tuhunkani markii ugu horeysay oo uu yimaado ma aha waase markii ugu horeysay ee Soomaaliland qof maqaamka ka taagan uu hadalkaasi ka soo dhaco laakiin horey baa tuhumadaasi u jireen adduunka sirdoona caalamiga baa dhowr jeer horey u sheegay oo Somaliland iyo argagixisada al-shabaab la yiraahdo inay xiriir ka leedahay waxa weeye riboodiyo badan oo hore baa laga qoray waxa weeye ninkii al-shabaab asaasay oo muddada ugu dheer madaxda ka ahaa oo ururka xooggiisa waxa weeye isagu ka dameeyay in godan u ahaa nin reer Hargeysa ah oo walaalkii xataa tali ku xeenka ciidanka asluubta Somaliland yahay oo ahaa reer Hargeysa oo ahaa tuhunadu iska badnaayeen laakiinse waxa cusub oo ugubka ah u yahay qof maqaamka Somaliland kule oo heerka ka jooga inuu maanta si bareera meel u la soo istaago Somaliland haddii argagixisada al-shabaab ay garab ka saartay oo sida uu sheegayo ay runtii tahay ay ka dhabto maanta ay garab saartay adduunyada waa ka dhacda waxa la socotaan argagixisada tan ka dagaalamaysa Suuriya in qaarkood lagu tuhunsan yahay inuu Mareykanku gacan siiyo oo asaaskeeda lahaa waxa la socotaan Mareykanka laftigiisu wadamada ay xulufada yihiin khaliijka ee Qatar leh ee Imaaraad leh ee Imaaraad ka ee Qatar iyo Sacuudiga iyo Turkiga inuu qaarkood ku eedeeyo inay urgugixiso ururo argagixiso ah oo xaq jira oo Liibiya oo ka dagaalama Liibiya iyo Suuriya in maxaa ku raahday wadamadaas ay taageeraan waxa la socotaan Taalibaanka maanta Mareykanku u taag la'yahay inuu isagu asaasay oo Afghanistan isagu u sameeyay si uu ugu la dagaalamo midowgii Sovieti oo Afghanistan ku soo duulay oo ay u jabiyaan oo midowgii Sovieti ay meesha uga saaraan markii ay midowgii Sovieti jabiyeen oo midowgii Sovieti uu meesha ka baxayna inuu isagii u soo jeesaday oo uu damcay inuu marka burburiyo oo hubka dib uga qaato tiina ilaa ay hadda waxa la yiri nin abeesa waxa weeye wadkeed kursatoy waqwaq ma ka yartay Mareykankii 15 sano miya mise 20 sano ku dhawaad uu iyagii la dagaalamayo oo u taagla yahay oo soo afjari kari laayo maalin walba markii ay baabiyeen oo nafti u keeneen uu hadda wada hadal kula jiro oo rabo inuu maxaa ku raahdaa heshiis nabadeed la galo dhow Afghanistan faraha idin ka qaadaya idinkuna danahayga iyo wadamada xulfada nahay iyo dalkayga iyo dadkayga faraha iga qaada marka adduunyada wadamadu way taageeraan iyo maamulada iyo shirkaduhu argagixiso iyagoo kale dana istiraatiiji ah oo ay fulinayaan Somaliland marka haddii warka Maxamed Biike uu sheegayo uu xaq noqdo uu sax noqdo oo war xaqiiqa uu yahay macnaheedu waxa weeye Somaliland cid urur argagixiso taageerta oo dan istiraatiiji ka mudata oo istiraadahaynii fulis ugu horeyn adduunyada waa wax caadi ka ah siyaasaddu iyada noocyo badan weeye marka laakiin waxa weeye adduunyada hore waa u soo qortay inagu waxa weeye tuhun baa jiray hore u jiray kiiba Maxamed Biike si xoojii laakiin wax xaqiiqa u qaadan meeno ummadda reer Somaliland ee dawlad leh ee shacab leh ee sharfan waxa laga doonayaa hadalka Maxamed Biike inay dhahaan anagu beri baan ka nahay lama qabno kulama soconno kulama jirno walaalaha iyo wixii ku dhacay waa ka xunnahay ururka argagixiso maxaa ku raahday ee dibta Soomaali ku ahayana waa urur argagixiso oo inagoo dhan dhibaato inuu ku wada haya waxa la soconaa al-shabaab Soomaali kaliya inay khatar ku ahayn inay gobolka dhan khatar ku tahay inay adduunka dhan khatar ku tahay waa sababta midowga Yurub ay ciidamada AMISOM mushaharka u siiyaan oo ciidamada Soomaaliyeed u dhisayaan waa sababta Kenya iyo Ethiopia iyo Uganda ay ciidamada wadanka u soo galiyeen weeye al-shabaab waxay khatar ku tahay gobolka iyo dunida oo dhan bay khatar ku tahay Somaliland gobolka ku taala dunideena kamid tahay wixii Soomaali dib ku ah Somaliland waa ku dib waxa weeye dad isku mid ah isku dad ah isku deegaan ah wali adduunyadu hal dal u wada aragto inagu aan kala cararno ama aan isku orodno ama aan isnacno ama aan isjeclaanay adduunyadu waxay noo aragtaa Maxamed Biike dad isku mid ah baan aragnaa waxa la socotaa waxyaabaha tuhunka keenaya waxa kamid ah Yurub baan joognaa Germany oo sirdoonka adduunyada ugu khatarsan leh farar argagixisa ka dhaca Faransiis farar argagixisa ka dhaca Ingiriis waa ka dhacaan Mareykan waa ka dhacaan Ruush waa ka dhacaan China waa ka dhacaan meel waa ka dhacaan Somaliland oo dawladda aan aqoonsiga haysan oo iska tabarta darana ah garanaysaan fal argagixisa kama dhaco waa ilaahay xamdigi weeye in ilaahay ka maxaa ku raahdaayay ka uu indhasaabay oo ilaahay maxaa ku raahdaayay isagu
waxa weeye dhibtaa ka badbaadiyay waa wax suurtagal ah weeye waana u badan tahay laakiin shaki waa keeni kartaa war argagixisatan ashaab la leeyahay iyo argagixisatan caalamiga oo adduunyadii faraha baan ku haysta oo maxaa ku rahay Soomaaliya meel walba kamida Puntland baa ugu soo durugsan oo xataa saldhigyada kule oo maalin walba dhibta ka geysanaysa oo Kenya ka geysanaysa oo Soomaaliya maalin walba qarax ka geysanaysa oo caasimadii inta ciidan la geeyay oo kuwa Soomaaliya loo dhisay oo AMISOM la keenay oo Turki joogo oo Belarus joogto waxa weeye laga badbaadin kari la yahay maxay Hargeysa uga dhici waayeen Hargeysa ma kaamirooyin aan Faransiis iyo Ingiriis haysan bay haystaan ma sirdoon uu Mareykan waayay bay iyagu haystaan ma awood aysan Ethiopia iyo Kenya lahayn ba Soomaaliland leedahay waa waxyaabaha tuhunka keenaya laakiin waxa laga rabaa ummadda Soomaaliland waxa laga rabaa tuhunka anagu waxa Maxamed Biike yiri xaqiiqo u qaadan meeno hadal waxa weeye shaki la weeye oo tuhunkii jiray si xoojiyay idinka marka waxa la idin ka rabaa ummadda Soomaaliyeed inaad tuhun saartaan oo tiraadaan Maxamed Biike hadalka uu yiri anagu lama qabno waana idin tacsiinayna waana ka xunnahay gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Cishro arinta waa ka hadlay waa ka tacsiiyay dadka halka ka dhacay maanta ka hadlay waa ka tacsiinaya wiil laakiin waxyaabaha nasiib darooyinka waxa kamida madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ilaa iyo hadda inuusan ka soo tacsiin marka isweydiiyo oo Muuse Biixi Cabdi ma hadalkii Maxamed Biike buu la qaba muxuu soo tacsiin la yahay ma Erdogan ba naga xiga anaga Muuse Biixi ma maxaa ku raada ma Trump ba naga xiga ma Putin ba naga xiga Ruushka iyo Mareykan iyo Ingiriis inta waa laga soo tacsiin maxaa u diiday Muuse Biixi dadka walaalihiisa oo halka ku shuf iyo maxaa ku raada beelay oo argixisadu laysay ya maxaa u diiday inuu ka tacsiiyo shalay markii fatahaadu ay ku dhufteen beledweyne reer Soomaaliland soo ku gurmanayo lacagta ururinayay Soomaaliya masiibadii ka dhacday beledweyne iyo tan Muqdisho ka dhacday maxaa farqiga u dhaxeeya yahay tan Muqdisho xun iyada daran tii beledweyne waxay ahayd masiibad dabiici oo xaq rabbi inoo ka timibahay tii ka dhacday magaalada Muqdishona waxay ahayd wax bini aadan sameeyay oo masiibo ah oo argagixis ah oo laga wada naxay oo inta wadada oo waxa weeye maatale oo nooc walba leh oo arday leh oo waalid leh oo cid walba oo ku basbeelan labada tanaasi daran marka Soomaaliland hadee beledweyne u danqatay hadii wabigii nagu soo fatahay u danqatay maxay ugu danqan weyday argagixisada oo ay uga dhiidii weyday argagixisada nalaysay oo Muqdisho dhibta inta la ka geysatay isweydiiyo Muuse Biixi marka waxa laga rabaa xukuumadda Soomaaliland waxa laga rabaa reer Soomaaliland dadkooda wax garadka waxa laga rabaa inay Maxamed Biike hadalka uu yiri ee shakigi jiray waxa weeye baasiika ku sii qabtay inay yimaadaan oo yiraahdaan anagu Maxamed Biike waxa lama qabno kulama socono naguma metelo intaas baa laga doonayaa dadka hadda hadlay oo gudoomiyaha golaha wakiilada gudoomiyaha xisbiga wadani uu kamid yahay injineer Cirona dadkaasina iyagu waa ku mahadsan yihiin xukuumadda intaas laga rabaa dadka Soomaaliyeed dad walaala ah weey dagaal baa in kala gaaray burbur baan soo dhaxmarnay dadku waxa uu kala tabanaya in la sii kala fogeeyo oo hadalada delqaaf oo dadka aan kala qaban karin la kala yiraahdo ma aha dadka Soomaaliyeed qof walba waxa ku waajiba inuu dadka isu soo jiido baa ku waajiba qofkii arka in wax la khaldayo ama group gaar ama koox gaar ama dawlad ama maamul ama qabiil waxa laga rabaa inuu dhaho war ka daaya sidaas ma aha ay ka daaya oo dadka walaalihiisa oo nastaxayo anigoo oday Soomaaliyeed waxaan ku dhawaaqayaa Maxamed Biike showga uu ku leeyahay Ingiriiska anoo ummadda Soomaaliyeed imaamadooda sida oo ku hadlaya afkooda fariinteedana waxaan rajeynayaa qof walba Soomaaliyeed inay gaarto anoo imaamadii Soomaaliyeed sita waxaan ku dhawaaqayaa Biike showga uu ciid maxaa ku sanadka cusub ciida gaalada uu rabo inuu ku qabto London haddaan Soomaalinahay waa qaadacnay qoftay karana male anoo oday Soomaaliyeed go'aan ka gaaray qof Soomaaliyeed oo dhig ku jiro ama Hargeysa ha u dhasho ama meel kale ha u dhasho ama Muqdisho ha u dhasho Soomaaliba haduu yahay ninka hadalkii uu yiri wuxuu ahaa hadal deeqaaf ah oo Soomaali oo dhan meel kasta joogo Soomaaliland ceeb ku ah oo ummadii kala cambaar ku ah oo cid walba dhibaato ku ah marka showga uu Ingiriis ku qabanayo waa qaadacnay business ka uu doonayo waa inuu arko xanuunka ee leedahay dhibaatada showga Biike waa qaadacnay oday Soomaaliyeed baa go'aan ka gaaray waa ku celinaya fariinteedana share gareeyo qof walba gaarsiiyo Soomaaliyeed anoo oday Soomaaliyeed oo koofiyada Soomaaliyeed sida oo ummadda Soomaaliyeed matali kara afkooda ku hadli kara waxaan halkan kaga dhawaaqayaa
showga maxamed biike uu doonayo inuu ku qabto happy new yearka magaalada london inaan qaadacnay soomaali qof tagi kara mid tigi goosan kara mid ag mari kara ma jiro oday Soomaaliyeed baa inta qaadacay Soomaali qofku cid uu rabaa ama Hargeysa ka yimaado ama Muqdisho ka yimaado ama Gaarisa ka yimaado ama Jigjiga ka yimaado ama Djibouti ka yimaado showga waa qaadacnay ninkaas hadalkii ka soo yeeray waa hadal Soomaaliland ceeb ku ah ummadda Soomaaliyeed oo dhan cambaar ku ah go'aankaasan gaaray ana gaaray oday Soomaaliyeed go'aan waa karo waa ninkii sheena culaya maxaad biike waxaan leenahay war rafaaga u tur dufku baxe maalin walba halkaas waxa la soo fadhidaa hadal xun baa la soo fadhidaa war waxay xillisan Suudaan ma kulay nacala shidan ku yaal war Suudaan anu kula hadlayno inta ka badan qoran karmayno war meesha iska qaad wajiga go'yan qoran maxay tahay xaas maalin walba waa dhatak hadal baa ka soo dhacay maxay tahay sidii xaarkiiba hadal ku qabanaya markaas aan waxba xiriinin war hadalka waa la kala haraa waxa la yiraahdo wuxuu meel dhow ku dhaca warna meel dheer ku dhaca hadalkii aad tiri maanta qof Soomaaliyeed oo dhagihiisa ku dhicin iyo midaan ka nixin ma jiro warabaaga u tur nacala shidan ku yaal wallahi billahi tala saa ku qato barida ku dhufto وانا كيشن عليها ودين نعم لا شدهم كذا فيديو سي شير قري جنالك سبسكرايب صار لايك تو كومنت كل صوب بدي انت برنامج كلام كل مدة نوع انه كل فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.